madaxweynihii hore ee dowladii kumeel gaarka Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. markuu soo gaaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaa halkaas ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo ku-xigeenkiisa Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugu Dheere iyo qaar ka tirsan dadweynaha ku dhaqan magaalada Kismaayo. soo dhaweynta kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay oo musharaxa soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. waxaa farxad weyn oo inaan maanta soo dhaweyno madaxweynihii hore ee dowladda kumeel gaarka ee Soomaaliya haddana musharaxa madaxweynenimo ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo isleeyahay xaqaan taariikh dheer oo ku lahaa rol badan oo ka soo qaatay siyaasadda dambe ee Soomaaliya iyo xasilinteedii isbedelkeeda lug badan oo ku lahaa. aad baan u faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno Kismaayo xarunta kumeel gaarka ee Jubbaland. waxaa la iscaad rays ku soo dhaw marxaba laga jecel yahay. aad baan ugu faraxsanahay inaan soo booqato musharaxiin badan oo hadda kursiga madaxweynenimada way yimaadeen iyagoo waxaan u malaynaa inta badan halkaan way soo mareen. calafku waa sidiisa laakiin qof walba tiisu qaadaya laakiin waxaa xusid mudan qofku in wixii uu soo qabtay marxaladii adkeyd ee la soo maray iyo waxqabadkoodii iyo taariikhii adkaa ee la soo maray wax badan laga xusuusto. aan xusuusanaynaa iyadoo xaalada adag oo kale halkaan aan iskula soo maray waqtiyo aad u adkaa. aad baan ugu faraxsanahay maanta anigoo halkaan joogo mas-uulka inaan isagoo mar labaad musharaxa ku soo dhaweeyo Kismaayo. aad baad u mahadsantihiin. salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. intaasi kadib mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ahna musharax madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa ka mahadnaqay soo dhaweyntii loo sameeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, madaxweyne ku-xigeenka, gudoomiyaha baarlamaanka, dhammaan mas'uuliyiinta kala duwan ee Jubbaland, golaha wasiirada, asbaahda saxaafadda, saraakiisha iyo ciidamada, waxgaradka, dhalinyarada iyo haweenka. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaan kadib farxad weyn ii tahay maanta inaan soo booqdo xarunta kumeel gaarka ee maamulka Jubbaland oo runtii soo dhaweyn diiran oo walaalnimo iyo Soomaalinimo leh ii muujiyay, taas oo ay xasuusinaysa marxaladihii hore ee wanaagsanaa ee dalkan oo soo maray, isla markaasna ciididiilo weyn ay gelinaysa in aan hore ugu tilaabsado dadaalka isbedelka wanaagsan ee aan rajaynayno inuu dhaco goordhow. sida madaxweynuhuba sheegay, waxaad ogtihiin in taariikhda deegaankan aan qayb ka ahayn. waxa ay ugu dambeysay halkaan 2006 aakhirkeeda sidaan uma qurux badnayn. marka waa idinkugu hambaliyeynaa nabadda iyo dadaalka aad muujiseen iyo isbedelka weyn ee runtii ka muuqda. waxaan idin rajaynaa insha Allah tabaaraka wa tacaala horumar ballaaran oo aad ku tilaabsateen dhinac walba, dhinac nabadeed, dhinac dhaqaale, dhinac siyaasadeed, dhinac bulsho. sidaas oo kale Ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba in Ilaahay nabad iyo horumar u gaarsiiyo, qulubtooda isu soo dumo, wanaagoodii iyo sharafkoodii iyo mudnimadooda Ilaahay u soo celiyo. war dheer ma raba inaan iraa kaliya waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo soo dhaweynta. marka wixii war kale aan isugu imaan doona aad iyo aad u mahadsantiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. si kastaba ahaatee safarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ahna musharaxa madaxtinimada dalka Soomaaliya ayaa imaanaya xilli la filayo inay dhacdo doorashada hoggaanka sare ee dalka Soomaaliya. aadan maxamed xasan, Somali Channel, Kismaayo.